anti waxaan wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageystay halkan waa shabakada caalamiga Dhaxnimo Media ee ka dhageysataan bartaanu internetka ku leenahay dhaxnimomedia.com kuna soo dhawaada wararkii toddobaadka oo idin akhriyana Maxamed Jaamac Dhaanteeya qodobada wararkan idin hayno toddobaadkan waxa kamid ah kuwada ugu xoog garoon xukuumadda hogaamiye madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka badbaaday inqilaab military koobiyo toban askari oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya lagu dilay magaalada Gondar ismaamulka Amxaarada iska horimaad ciidan oo sababay khasaare nafeed oo dhexmaray Puntland iyo Somaliland dawladda Masar oo hubiyo saanad military ku wareejisay dawladda federaalka Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan inqilaabkan dhicisoobay ay sameeyeen xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga ayaa dhacay habeennimadii Sabtida soo galeysay bisha July ahayd 15 inqilaabkan ay horkacayeen qaar ka tirsan hogaanada ciidamada qalabka sida ayaa durbadiiba bilaabay in ay duqeymo iyo xiritaano ku sameeyaan dhismayaasha dawladda sida dhismaha baarlamaanka xarunta mukhaabaraadka oo ay duqeyn ka geysteen iyagoo la wareegay xarunta TV-ga iyo raadiyoga dawladda loo yaqaano TRT-da kooxdan ciidanka inqilaabka wadatay ayaa awoodda saaray magaalooyinka waaweyn sida Ankara iyo Istanbul madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la hadlay inqilaabka markii lagu dhawaaqay isagoo fariin muuqaal ka soo tabinayay TV gaar loo leeyahay ayaa shacabka ugu baaqay inay sharciyada u soo baxaan oo ay difaacdaan xukuumadooda sharciga kadib hadalka madaxweynaha waxa sharciyada u soo baxay mowjado dadweynaha kuwaas oo gacanta ula tagay ciidankii inqilaabka watay madaxweyne Erdogan oo la hadlayay ka gadaal markii uu fashilmay inqilaabku ayaa mas'uuliyadda dusha uga tuuray wadaadka lagu magacaabo Fatxullaahi Guulaan balse wadaadku waa iska fogeeyay in uu lu kulayahay inqilaabka geesta kana ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga bin Ali Yildirim ayaa ku sifeeyay kooxdan inqilaabka wadatay qaar ka soo horjeeda horumarka iyo sharafta Turkiga guud ahaan jawiga ayaa caadi ku soo noqday kadib markii laga qabtay ilaa iyo 8 oo isugu jira saraakiil ciidan oo ku lug lahaa arintan hubka oo la wareegay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo wehelinayo taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka General Maxamed Aadan Axmed madasha wareejinta saanadan military oo ay ku qabsoontay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay safiirka dawladda Masar u fadhiya Soomaaliya Waliid Ismaaciil Axmed hadalka safiirka ayaa diiradda saarayay xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga u dhaxeeya jiray dawladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa sheegay in aanay arrintan noqon doonin tii ugu dambeysay ee deeqda dawladda Masar siiso dawladda Soomaaliya dhankiisana wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa dawladda Masar uga mahad celiyay arrintan wasiirka ayaa sheegay in hubkan ay isticmaali doonaan unug sida gaarka u tababaran ee daram kuwaas oo weeraro qorsheysan ku qaada fadhiisanada ururka Al-Shabaab cunaqabatayn dhanka hubka ayaa saarneyd Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay burburtay xukuumadda dhexe Soomaaliya sanadkii 1999 ciidanka Soomaaliya ayaa loo diyaarinayaa inay sida dhaqsaab la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya dhawaanayay ahayd markii ciidanka Uganda oo kuwa ugu tirada badan howlgalka midowga Afrika AMISOM ay sheegeen inay ciidankooda dabayaaqada sanadka 2017 kala baxayaan dalka Soomaaliya balse jananka guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Axmed Aadan oo arrintan ay saxaafaddu wax ka weydiisay ayaa xaqiijiyay in ciidanka Soomaaliya diyaar u yihiin difaaca dhulkooda hooyo haddii caawimada AMISOM lagu wareejiyo iyadoo gobolka Sanaag oo kan ugu baaxadda weyn Soomaaliland ka bilaabantay qaadashada kaarka codbixiyayaasha ayaa haddana gobolka oo kamid ay ku muransan yihiin maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa waxa ka dhacay iska horimaad kooban oo sababay dhimashada laba askari oo labadii dhinac dagaalamaya dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka Boodacad oo qiyaastii 40 kiiloomitir dhanka galbeed ka soo xiga degmada Dhahar ee gobolka Sanaag dhinacyada oo la hadlay warfidiyaanka ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu weerarka soo qaaday dhinaca Somaliland u hadlay wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa sheegay in weerarka uga yimid dhanka Puntland ay iska difaaceen kana qabteen gaadiid dagaal iyo 6 maxbuus oo ku jiro hal xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka Puntland geesta kalena taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Puntland Colonel Jaamac Saxardiid ayaa warbaahinta u sheegay in ay 5 askari ka dileen ciidanka Somaliland ee goobta joogay tiro kalena oo aan cayimin ka dhaawaceen ciidankii dagaalamay ayaa isku horfadhiya goobihii dirirtu ka dhacday korneelku waxa uu xaqiijiyay in uu jiro in ciidanka Somaliland qabteen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland balse taliye ku-xigeenku waxa uu arrinta ku tilmaamay qaab qafaarasho jidgooya oo loo dhigtay xildhibaanka oo ay wada marayeen goobta dagaalka
dagaalkan ka dhacay waxaa soo kala gaadhay gurmadyo ciidan labada dhinacba. askartan ayaa toogasho lagu dilay kadib markii magaalada Gonda ay ka dhaceen rabshado ka dhashay kadib markii sida la sheegay la damcay qayb ka tirsan dhulka Amxaarada lagu daro ismaamulka Tigreega ee ay dariska yihiin. warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa arrintan ku eedeysay in laga soo abaabulay rabshadahan dhanka dalka Eritrea ee cadowga yihiin. dalka Itoobiya ayaa rabshada hareeyay tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay bilaabatay kacdoonka ka socda ismaamulka Oromada iyagu ah qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi, kuwaas oo ka dhashay markii la fidiyay dhulka ay caasimadda Addis Ababa ku fadhido. dalka Itoobiya oo kan ugu awoodda badan dalalka geeska iyo bariga Afrika ayaa leh military aad u xoogan, balse caqabada dalkaasi haysata ayaa ah in dalku ka kooban yahay qowmiyado kala diin duwan, kala luqad duwan. arrintaasi ayaa ay dalkaasi ka dhigtay mid aad ugu nugul rabshado ka dhaca. sidoo kale dalka Itoobiya ayaa waxaa cadaawad aad u qoto dheer kala dhaxaysa dalalka dariska sida dalka Eritrea iyo dalka Soomaaliya, balse dadka sida dhow u faaqida siyaasadda ayaa qaba in dhimashadii hogaamiyihii ruuxiga ah ee dalkaasi Mele Zanaawi ay dhaawac ku keentay haysashada dalkaasi. وهاجنتنا واحد دقيقة استياشة قيمها يقدر أنت المدن ونجاج وركي تدوات كوني أخري أنا محمد شاعر عندي تينو كل ما دونا وركني وركله وحنود الله ناس داسيو نبض قليل. أما بالشوين تصومالي ده وحلو بشاري رجاي بيلك السوى عالم كتشوغان شبكة عالمية هي تحميل الميديا دور وعاقلة سعودك ورارك الصومالي ده عالم كأوطرية سيدو أوطرة وحاقلة سعودك برنامج شيخي تحنبار فالوري الصاحبة مقالب بسن شيكوين خويصة تاريخون النساء حتى رسياد بخطغر لمليون دوت تحميل الميديا